السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tarbiyadda carruurtu xilliga ay yaryar yihiin waa mid muhiim ah waana mid saameyn ku leh marka ay weynaadaan. Waxaana jira daraasado lagu sheegay garaacista badan ee ilmaha loo geysto saameynta ay ku yeelanayso xataa markuu weynaado. Waxaana lagu sheegay in garaacista badan ee ilmaha ay dhaxal siiso inuu ilmahaasi noqdo mid adag, iyadoo la sheegay in carruurta marka ay yaryar yihiin aad loo garaacaa ay noqdaan inta badan kuwa aakhirka sameeya fal-dambiyaadyada xunxun. Sidoo kalena garaacista badan wuxuu ilmuhu ka dhaxlaa inuu noqdo mid ay ku yar tahay kalgacalka uu qabo waalidkiisa iyo walaalihiisa kaleba. Waxaana lagula taliyay waalidiinta carruurtooda inta badan garaaca inay garaacista ugu beddelaan arrimahan marka uu ilmuhu qalad sameeyo. Haddii ilmahaagu qalad galo oo aad u sheegto isla markaana uu caadaysto inuu ku noqnoqdo qaladkaas, waa inaad isku daydaa inaad ka aamusto ilmaha muddo saacada iyo wixii la mid ah. Sidoo kalena waa inaad u sheegtaa inaad ka joojinayso waxaad siin lahayd ama u soo iibin lahayd hadduu dayn waayo qaladkan. Waxaanay arrimahani ilmaha ku dhalin doonaan inuu si iskiya u joojiyo arrimaha aad diidan tahay. Waana inaad badisaa taymka aad la sheekaysanayso iyo waqtiga aad la qaadanaysa ilmahaaga. Ugu dambeyntiina waa inaad ku tarbiyadaysaa ilmahaaga dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan ee ay nafaraysa diinteena Islaamku.